Halkani waa goob media oo idin hayso wararkii caawi caalamka. Aynu ku bilownaa dalka Iran baa wuxuu galay xaalad kale oo mushkilada kadib markii uu soo riday diyaarad sida rakaab oo Ukraine laga lahaa. Diyaaradaas oo Ukraine laga lahaa waxayna siday muwaadiniin Ukrainiyiin, Iiraaniyiin, Canadian iyo dalal kale oo badan. Waxaana ay si kama ha ugu dhufteen gantaal iyadoo dul maraysa kana kacday isla dalka Iran garoon ku yaala. Haddaba kadib markii ay Iran qiratay inay gantaalkan iyadu soo riday, waxaa ka soo baxaya dalka Iran warar kala duwan iyo caalamkaba sida ay soo jebinayaan wariyaasha ku sugan Iran. Waxaa ka dhacday dalka Iran mudaharaad baa soconayay maanta oo laga soo horjeedo madaxweynaha dalka iyo xubnaha ugu sarreeya, isla markaana ay dadku ka codsanayeen inay is-casilaan maadaama ay sameeyeen khaladkii ugu weynaa dunida. Inkastoo madaxweynaha dalka Iran Ayatollah uu sheegay in khalad ay ahayd waxa dhacay uuna ka xun yahay kuwii sameeyey ay falka ku kacayna la saari doono maxkamad. Hase ahaatee dadku waxaa kuma qancin, taasoo madaxweynaha Mareykanku isla markiiba ka faa'iidaystay kuna soo qoray madaxweyne Trump Twitterkiisa in ay dadka reer Iran taageeri doonaan isna garab taagi doonaan taageero iyo wax kasta u baahan yihiin ay siin doonaan oo sii wadi doono dalka Mareykanku, isagoo uga jeeda inuu kiciyo dadka Iiraaniyiinta ah iyo dalka uu kasoo horjeeda waa isla Iran. Shacabkana wuxuu doonayaa in ay madaxweynaha Mareykanku ku kacaan dowladooda dumiyaan. Hase ahaatee dalka Iran waa dal awood leh, wuxuuna sameeyey awood ayuu ku isticmaalaa mudaharaadada, inkastaan ahayn kuwii hore bishii hore ka dhacayay ee awoodda badnaa. Kan uu ka yara sahlanaa misana. Hase ahaatee booliska ayaa u isticmaalay awood iyo gaasta dadka kaga ilmaysiisa oo kala dejiyay dadkii cadhaysnaa ee ka cadhaysnaa gantaalkii lagu dhuftay diyaaradii rakaabkooda badan u saaraayeen. Wararka kale aynu ka helayno dalka Iran, dowladda Iran baa waxay ogolaatay in sanduuqa madow loo gudbiyo dalka Faransiiska si uu baaritaan ugu sameeyo wixii sababay diyaaradii rakaabka ahayd ee gantaalka Iran ku dhufatay, baaritaanna loona ogaado gantaalka ku dhacay nooca uu ahaa iyo arrimo kale oo muhiim ah. Taasoo dowladda Iran ay u muujisay arrintaa debacsanaan si ay arrinta uga ilaato kama ahayd. Wararka kale goob media ka heshay caalamka waxaa ka mid ah dowladda Yuhuudda oo carabta ugu baaqday inay isu kaashadaan sidii ay Iran uga hor iman lahaayeen ulana wada dagaalami lahayn si wada jira. Iran oo ay ku tilmaameen fadqalallo ka jirta bariga dhexe. Dowladaha Islaamka ee carabta ah ayaa waxay ka codsadeen in ay meel uga soo wada jeestaan una midoobaan si ay iskaga baaciyaan dowladda Iran oo halis ku ah arrimahooda. Sidaana waxaa sheegay madaxda ugu sarreysay dowladda Yuhuudda. Wararka kale aan idin haynana waxaa ka mid ah dalka Turkiga iyo madaxweynaha sharciga ee dalka Liibiya ee foodadu ka taagan tahay ayaa wuxuu baaq u diray madaxweynaha Turkigu Liibiya. Madaxweynaha Turkiga ka codsaday in uu ku caawiyo xagga militariga iyadoo isla dalka ay ku sugayeen ciidamo Turkiga oo taageera dowladda. Turkigu wuxuu daneeyaa had iyo goorba meelaha ay danihiisa ku jiraan taageero noo fidiya, waana dowlad awood badan. Waxaanu hadda ciidamo badan u diray dalka Liibiya si ay uga caawiyaan dowladda sharciga ku dhisan. Wadaadka gooni-goosadka ah ee taliyaha ciidanka ahaan jiray mucaaradka ah. Isla wararka kale aan idin hayno waxaa ka mid ah Liibiya gudaheeda dalka Ruushka
oo maleeshiyaadkiisii ka dagaalamayay dalka ugu baaqay inay dagaalka joojiyaan iskagana soo baxaan. Warar hordhacna waxay sheegayaan in maleeshiyaadkaas durba bilaabeen inay iskaga baxaan dalka Liibiya iyo furimihii dagaalka ay ka dagaalamayeen, iyagoo u hoggaansamaya awaamirtii uu faray madaxweynaha Ruushka